tabintii ciyaaraha falaqaynta ee ka socotay xerada dhagaxley gaar ahaan Toronto ee City ama sida loo yaqaan Toronto ee Boys labada kooxood ee maanta ay ku balansanayeen waxay kala ahaayeen Celta Vigo FC versus FC Superstars labadan kooxood ayay ka tirsan yihiin group B kuwaasoo ah inay kooxda wareegooda koowaad u yahay labadan kooxood balansan ayaa ciyaar fiican soo bandhigay ciyaartaasoo ku rayaaqayn taageerayaasha inkastoo ciyaarta ku idlaatay ama ku dhamaatay barbardhac eber ee gool la'aan ah balse labada kooxood aad iyo aad ayay fursad u abuureen inkastoo ay fursad dahabi iska khasaarisay kooxda Celta Vigo oo xilli dambe rigoor heshay balse isla muuqaalkan ayaan ku arki doonaa rigoorada iyo laacibkii ciyaaryahankii ka khasaariyay iyo kooxdiibaha FC Superstars oo asayna mucjiso dhigay ee badbaado cajiib sameeyay xilliga waqtiga dhimashada u dhaweed balse fursadan waxay faa'iido u tahay kooxdii kale ay wareeg hore ka dheeleen ee group B balse kuwan ayta ayaa isku dhegay waxayna kala qaybsadeen labada dhibcood ay kala qaybsadeen hal dhibac ay kala qaateen kooxdan FC Celta Vigo waxay ka imaatay xaafadda A2 ay soo baxeen Superstars FC Superstars aytana waxay ka soo baxeen Toronto ama xaafadda section C ay ka soo baxeen marka ciyaarta soo aad u raaqad daawo bal goolkii iska khasaariyeen kooxda FC Celta Vigo ayaa rigoor heshay aan arnaba rigoorada inay dhaleen kale waxay sii ciyaaryahankooda sugaal ayaa soo istaagay hadduu xilliga waqtiga waxa waaye aakhir sac sida maqal jiray waqtiga dhimashada ayaa la geli doonaa hadday goolka dhashtaan fursad dahabi ay u tahay Australian nasiibkooda ciyaaryahanka sugaal ayaa soo istaagay Sergio ay sugaya macallin Jabray hadii yeerin doono rigoorsoraha ayaa yeeriyay Aswal save to the Superstar keeper. What a wonderful save. Ciyaarta ayaa soo ilaatay